deegaanada la duqeeyey ee Gaza waxay u ekaadeen duni la dhalan rogay. waa naxdin jiilasha dambe u sii gudbaysa. hooyo ayaa halkan taagan oo ku qaylinaysa gabadhayda gabadhayda. carruurta Gaza waxa ay dhex joogaan dagaal sii kordhaya. Israa'iiliyiintuna waxay sheegayaan inay beegsanayaan Xamaas kuwii dadkooda laayay. goobaha aadka loo degan yahay waxaa ku kordhaya dhimashada iyo dhaawaca rayidka. inaan casar tukado ayaan doonaya ayuu leeyahay in dhex jooga burburka gurigiisa, kadibna madfac ayaa nugu soo dhacay. reer Gaza hadda uguma horraysa dagaal, balse kanoo kale abidkood ma arag. cidda dhimanaysa iyo cidda badbaadaysa waa qof iyo nasiibkii. waxa ka dhacaya Gaza in dunida kala ogaato waxay ku xiran tahay in yaroo dhiiran oo gudaha ku nool. Hello Mahmoud, how are you? Alhamdulillah, tamam. maxamed oo Gaza jooga ayaan la hadalnay. maxamed waxa uu ka mid yahay wariyaasha musiibada Gaza uga soo warrama BBC. maalin kasta xanuunka ay ku jiraan dadka Gaza ayuu soo duubaa. waxa uu sheegay sida ay u adag tahay wixii uu arkay. isagoo isku dayaya inuu fariinta gudbiyo ayuu ilmeynayay. mararka qaar waxa uu istaagayay kaamirada gadaasheeda waana uu oynayay. waxa kaliya ee uu samayn karay ayaa ahayd inuu aamuso. in ka badan 4.1 milyan oo dad ah ayaa ka qaxay guryahooda. waxa kaliya oo haystaan waa teendhooyinkan. waxyaabaha daruuriga ee nolosha u baahan tahay aad ayay u xadidan tahay halkan. waxaan gaarnay marxalad aan rajayno inaan ku dhimanno guryaha dumay hoostooda si aan dhibka uga nasanno. nolosheenna waa cadaab. waxaan 3 saac fayl ugu jirnay inaan musqusha isticmaalno. ilmo yar ma sugi karaan in 3 saac ay saf ugu jiraan musqusha. canug yar rooti ma sugi karaa. tani waa aafo. jawaabta su'aasha taagan ayaa ah wax aan geeri ahayn dagaal lagama dhaxlo.